agaasimaha guuda nadaafadda gobolka banaadir agaasimo suudi xildhibaan hore xaaji muxudiin xasan afrax oo odayna wabaaliye geliga soomaaliya laga yaqaan gaar ahaan odayaar kaaraan ah xildhibaan muudey xildhibaan isteed hirshabeelle gudoomiyaha wadooyinka hirshabeelle madaxda kale halka fadhido dhammaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aqalka soomaaliyeed iyo dhammaan madaxda halka fadhida konsolka degmada kaaraan oo isku duuban iyo shacabka caawa faraxsanahay haddii aan wax ka tagay yaa waxba lee qaban dhammaan qof kastoo halka fadhido saxaafadda ka midta halkusugan asalaamullahi calaykum waraxma salaan kadib caawa xafladda waxay ku saabsan tahay doorasho qof iyo code mar hore ayaan u diyaargalowna annaka kaliya maahan caawa kaliya in aan sheegno maalintii ugu horreydayoo cayaarihii degmooyinka gobolka banaadir iyo degmada balcad tartanka naga dhexeey markaan ku guulaysanay koobka ayaa habeenkii aan koobka soo qaadnaa halkan shacabka waxay dhaheen koobkii 40 sana naga marnaayo waan helnay caawa waxaa naga dhiman kaliya doorasho qof iyo cod dowladdana way rajaynaysay in doorasho la hirgeliyo laakiin qof ku dhiiri karta ma jirin markaas habeenkii halkaanaa ka sheegay idaacadaha way u duuban yihiin way ogyihiin waxaan ku dhawaaqay doorasho qof iyo cod in aynoo dhiman tahay kaaraanna ka hirgelinayno waxay soo waceen dad badan oo siyaasiyiin ay soo waceen oo madaxe oo u dhaheen doorasho qof iyo code ayaa ku dhawaaqday arrinkaas maxaa ula jeeday markaan ku dhawaaqaynay shacabkan mas-uulaha rabitaankooda ayaa ugu qasbay inaan ku dhawaaqo kadibna way soo degdegtoo doorashadii si buuxa ayaa loogu dhawaaqay haddana waxaan u diyaarsannahay degmada ugu horreydo oo degmada kaaraan inay noqoto go-aanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ku dhawaaqay inaan heergelino ayaa naga go-an shacab iyo maamulba gudoomiyaha gobolka banaadir ama duqa caasimadda muqdisho daraad isbuucii hadda ahaay maqaamka gobolka banaadir inaan isteed noqonno oo ku dhiiraday shacabka degmada kaaraan iyo madaxdaba waan ku faraxsannahay waana soo dhaweynayna waana ku taageeraynaa gudoomiye amiir intaa markaan ka gudbo degmada kaaraan dadkii igu horreeyey ayaa sheegay horumarka ay ku tallaabsatay haddii ay laami noqoto iyo haddii ay waddo interroog noqoto iyo haddii ay noqoto isku xirka bulshada degmada kaaraan heer sare ayay maray insha allah waxaan rajaynaynaa inaan inta dhimano dhammaystirno rabitaanka shacabkana aan ku shaqayno madaxda naga sarraysa awaamirta ay bixinayso aan u diyaar garowno way naga go-an tahay degmada kaaraan horaa loo sheegay 2 milyan 3 milyan ayaa deganaa dhahay laakiin aniga waxaan caddeynaa caawa 1 milyan waa yaraysanaynaa 1 milyan ayaa degan 1 milyan oo kaaraan deganna birmada xasan sheekh ayaa u shidan 1 milyan oo kaaraan degan birmada xasan sheekh ayaa u shidan dal xoreeya ayaa u shidan doorasho qof iyo cod ah ayaa u shidan horaana loo sheegay 4 qofood 5 qofoodoo doorashada ka soo horjeedo waxba naga qaadi maayaan ma rabno magacyadooda inaan ka dhawaajino laakiin dadku way yaqaanaan waxaan idin caddeynaa xaasaskooda iyo carruurtooda national aid yaqaanishohaya odayaashaas meesha taagan oo dhahaya doorasho lama qaban karo